waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee aad shalay iyo maanta aad ku soo dhaweyseen mas'uuliyiinta kala duwan ee timiday degmada Buulaburte sida qalbiga wanaagsan iyo wajiga furan oo ku soo dhaweyseen aan idinkaga mahad celinayaa waana ku mahadsantihiin runtii degmooyinka dalka waa la yaqaanaa degmada Buulaburte waxaa la yiraahdaa waa degma dadkeedu ay yihiin dad ilbaxa degmooyin kalena ay wax badan ay dheer yihiin la yiraahdaa runtii waan idinka muuqataa waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina aad iyo aad u mahadsantihiin sida mas'uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka uu horeeyay oo uu sheegay anigu shalay waxaan ka tagay Jowhar xamaran xalad tagay qorshayguna wuxuu ahay inaan inta imaado iyo degmooyin kaleentood laakiin talaan u aaday madaxda dalka ugu sareyso oo madaxweynuhu kow ka yahay guud ahaan waa soo salaamay ummadda Hirshabeelle gaar ahaanna heer Hiiraan oo hadda dhibka uu ka socdo colaadda ay ka taagan tahay si gaar ah u idin soo salaamayay waxaan u aadana waxay ahayd sida cadawgaan ummadda dhibaateeyay looga dul qaadi lahaay iyo sidii dadka ay abaartu saameysay wax loogu qaban lahaa labadaas qodob ay ahaday waxa ugu badan oo ugu tagay labadana waa ila qaatay in dadka loo gurmado abaartu saameysay oo wax laga qabtana aad ugu soo dhaweeyay diyaar oo u yahay waxa la wixii la qaban kara in la qabto midda kale intoodna colaadda ka socota iyo aaga furan inaan loo kala helin oo hadday bulshada tahay iyo hadday ciidamada tahay intaba nimankaas cadawga gacanta la isla saarana aad ugu soo dhaweeyay waxaana laga yaabaa waqti asuguna aan dheerayn inuu ku soo wajahan yahay gobolka Hiiraan hadii la raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin saddexda qodob oo sheegteen nima la yiri duceysa soo awlan ku tala jiray annaga saddexda awal noo qorshaysanayd aad goobtaan ka sheegteen waxaad ogtihiin guddiyaan magacawnay dagaalka ka socda labada degmo saddexda degmo intuu dhaxaysa ka socday oo degmada Beledweyne Matabaan iyo Maxaas intuu dhaxaysa ka socday guddiyaan magacawnay oo gudoomiye oo u yahay wasiirka arrimaha gudaha awalna abaabulkiisa bilowgiisa gudoomiye gobolkan ku ogeyn meesha oo annagu ka warqabnay oo wax waliba aan la garab taagnayn ujeedkeena wuxuu ahaa in culayska saaran ummadda Hirshabeelle laga dul qaado ahay guddigii goobtay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha u heray inuu wifdigan soo raaco moogi inta kale qolay wasiirada waxay ku sugan yihiin teedaan ay ku hoydeen xalay ayaantana ay joogeen sidaas inaad ogaatiin aan rabnaa inaan dagaalku naga go'an yahay loona kala heri ma hadii la raalli ka noqdo intaas horta ogaada saddexda qodob oo sheegteen qodobka dagaalka waa naga go'an tahay nimanka nabadiidka dalka sidii looga xoreey lahaay deegaanada ay waxyeelada ay u geysteen ay guriyihii ka gubeen ceelasha ay ka duugeen biyo dhaamiraan ka wadnaa waxaan ka shaqeeyo waynaa sida ceelashii deegaanadii la xoreeyay ay dhabka iyagu u geysteen hadda sacadowga laga dul qaaday sida ceelashii wixii dayactir maayna matooro iyo bamba loogu heli lahaay waxaan dayactirmayna ceel cusub loogu qodi lahaayeen hawsheedu ku jirnaa insha Allah waqti aan dheerayna waa bilaabo doontaa loo kala heri maayo dib u xoreynta inta Hirshabeelle guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle kiiloomitir kamid ay ku sugan cadawga qalabka saan u qaadanay naga insha Allah hadii la raalli ka noqdo mana loo kala heri ogaada taas qodobka kaleento abaar baaxad lahaa dalka Soomaaliya ka dhacday waa ogahay Hirshabeelle waxay u qaybsantaa nolosha dadka ku nool laba qaybood waa beeraha iyo xoolo dhaqato iyo beeray u qaybsantaa dadka beeriyay saameysay oo webiga biyo la'aan ah dadkii xoolaha tacbay haystay ee dhaqa jiray ama beeraha xareedda ku tacba jirana roobnimadii xoolihiina way baaba'een waxaan dareemi karnaa marka dhibaatada intaas la eg iyo culayskeeda dad dareemi karaan nahayo ummadii mas'uul ku ah kuna dhex nool oo xaaladda ummadda ay ku sugan yihiin dad ogaan nahay abaartaas wax alla waxaan qaban karnaa qabayna insha Allah hadii la raalli ka noqdo layla dhaan badanna waa dirnay insha Allah wax waana rajaynaynaa waxbaan nagu soo fool leh sidaan wax u haynaana isu kaashaynaa ilaahayna waa baryaynaa oo Allahan tuugaynaa in culayska oo fudeed noogu bedelo sida loo kala liito ama loo kala dareeyana wax loogu kala hormari doonaa dadka jilcasan ee abaartu ay saameysay hadii la raalli ka noqdo qodobka saddexaad oo aad ka hadasheen ee ah in la helo agaasim
ama maamul dadku ka raali yahay horana hadda ka horan intuu anugu ballanaan u malaynaayaahe dadka faa'iidada ay u leedahay waxay tahay golaha deegaanku laba faa'iiday u leedahay dad ay ku raali ka yihiin inay doortaan dikireetana aan ku imaanin faa'iiday u leedahay qodobka kale horumar badan ku xiran sida ogtiin gola deegaan meeshii laga dhiso mashaariic badan ka fulayso sababtoo ah waxay ku leeyihiin dadka deeq-bixiyaasha ama ka shaqeeyo mashaariicda waaweyn deegaanan isdooro wax badan kama qaban karno sababtoo ah mas'uulkii maanta la keeno mashruuca la bilowno aan laga yaabaa mashruuciyo dhammaan in hal kale la keeno ama laba kale la keeno sidaas darteed wax badan laga qabo ma karee dadku hees doortaana lagu leeyahay wuxuu leeyahay marka faa'iidadaas horumarkaana waa leeyahay diyaaran idin nahay waxa garabka iga taagan wasiirka arrimaha gudaha horena waa ugu ballanna waa og yahay maantana hortiinaan ka faraa in degmada Buulo Burto sida uga dhaqsaha badan golaheedii deegaanka la dhiso si horumarkeeda u gaaro aad u mahadsantihiin talooyinkiina qaaligaana waa qaadanay qaybna waa arki doonaa bulshada qaybahooda kala duwan haddii la raalli ka noqdo guuleysta bulshooyinta degmada Buulo Burto waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad qalbiga furay wajiga furan oo ugu soo dhaweyseen waa ka mahad celinaynaa waxyaalaha kale oo ka dhawaajiseenna xilli ku habboonaan ka hadli doonaa iyadana haddii la raalli ka noqdo laakiin ballantaynu waa inaan deegaanka xurayno dadkan abaartu saameysay inaan u gurmano golaha deegaankana si gaar ah waxaan ugu xil saarnay wasiirka arrimaha gudaha cadawgana waa iska xuraynaynaa dadkana waa u gurmanaynaa maamulkana waa la dhisaa haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin